akhyaarta hadda waxaan rabaa kusoo dhawaada horta Kawawa Food Channel wuxuu rabaa in uu idin diyaariyo chicken breast waa 4 xabo chicken breast ah aan dhadhan u yeelayo insha Allah aan ku dubayo birta grillkana aniga insha Allah waxaan rabaa Ramadaantan cunto badan ba inaan karin ilaah duraali ka noqdo cunto intay soo harto frijeer lagu ururinaayo iyo ma jirto iyo wax la wada shiilaayo shiilitaan hal xabal leh bas ilaah duraali ka noqdo ka shiilida badan saliidaaseeto it's not good wadna xanuun iyo ilaahay dana ugu soo baxaysa ilaah duraali ka noqdo yaro fudud si qofkana sooman ee jikada ku jiro uu yaaqay dabkaas iyo kuleelkaas uusan waqtigiisa ugu dhuminin afur yaro khafiif ah shurbada important waaye iyo wax yaro dhandanaan leh beja furudka hala badsada dhihi lahaa aniga istadan wax kale la cuni lahaa okay hadda halkan ayaan ku ridaneynaa waa ujeediin sidaan u jarjarayno sababta birta grillka ayaan rabaa inaan ku dubo waxaan rajaynayaa in aad jeclaan doontaan habkan aan raba in aan u sameeyo insha Allah halkan waxaa diyaar noogu ah natural yogurt waa Greek yogurt ayaan rabaa in aan ku daro insha Allah waa tablespoon waxay u dhigantaa qaadada bariiska aan ku cunno hadaad geedkan cabirkan aadan haysan qaadada bariiska aan ku cunno ayaa ku cabiran kartaa insha Allah labo saddex afar shan lix isla soconaayo umaleena akhyaarta daartid waa si adiga ayay ku jirtaa sidaad u qiyaasanaysid insha Allah hadda waxaan ku darayaa turmeric waa 1 teaspoon 2 teaspoon garlic powder 1 teaspoon onion powder taasoo dhadhan markaad ku sii dartid biyo saborito noqonaya kanna waxa waaye sweet chili and mint isagana 1 teaspoon
sheekad markay halkaas noo marayso waxaan ku dareynaa magic one teaspoon waa seasonkii kana the magic saturated salt saltiga marka badinayno markii waxyaabahan kale ayaa leh isbooyin pitcot ugu dareeyaa okay waxaa inoo dhiman pitcota saltan ku daray waa ujeedeen half lima dhanaan marka waxaan ku cabiranayaa caagaygaas waxaan rabaa 30 oz that's it waa kaasa 30 oz sheekada markay intaas inoo marayso wixii oo idin waa isku qasaneynaa kadibna talaagada ayaan gelinaynaa 2 hour amba 2 saacadood oo frijeerka ah 2 saac kadibna waan soo bixinaynaa insha Allah si fiican inaan isku dhex geliyo waay meel kasta inuu ka gaaro chickenka wixii ahaa carfis iyo yogurtii aan ku shubnay dhan kasta inuu ka galo waaye liinta saboriti u yeelaysaa softana way ka dhigaysaa chickenka markay gudaha ka galaysaa way jilcinaysaa sidee leedahay liinta softana way ka dhigaysaa saboritana way ka dhigaysaa waa ujeediinaan umaleynaa khiyaarta hadda waan dabooleynaa insha Allah talaagadaa taqaana markaasna insha Allah waanu dabooleynaa waanu dabooleynaa hours waxaan gelinayaa talaagada waan isku soo laabanaynaa 2 saac kadibna waan shiili doonaa ilaa hadduu raalli ka noqdo qaraabo iyo xisaabba anaa idinku soo laabtay digaaggii waad ogeedeen asxaabkaan u qasay talaagada hadda ka soo baxsha ama frijeerka 2 saacadood ayuu igu jiray marka hadda waan shiileynaa ilaa hadduu raalli ka noqdo waxaan marinayaa waa buuraha testi maxan ayuu u yeelaa hilbaha amba markii digaaga la dubaayo ogaada taas aad iyo aad testi u maxan ayuu u yeelayaa sababta waana idin soo diray cuntooyinka saliidda badan lagu shiilaayo inaysan caafimaad ahayn calooshii maanta dhan baahneed cunto dufan badan ha layska ilaaliyo waan idin soo diray wiilka yar oo Soomaaliga oo dhakhtarka ah kulli wasabka idinku soo diray biliisa oolyada badan ha layska ilaaliyo ilbaha amba digaaga markaa shiilanaysiin amba saan oo kale grill hal ugu duwa birta amba ovenka geli dufan badan caafimaad maaha caloosha markay baahan tahay qof kastana waa u soo diray wasabkiisa uu soo diray doctorka Soomaaliga wuxuu ka sheegayaa wixii fiican oo lagu afuri karo laguna suxuuran karo iyo waxa aan fiicneen oo lagu afuro amba lagu suxuurto inta waa idin soo diray
hadda kan dufan badan ma lahan oolyada markii la dhex dhigaayo ayaa daran cuntada laakiin markaa saan oo kale u dubatid wax caafimaad leh ayaad cuntay oon dhibaatana kuu keenaynin halkan waxaa diyaar iigu ah extra virgin olive oil oon dhex dhigay fresh garlic oon jarjaray iyo wax yaroo saalta ah dhadhanka umbaan ka rabaa wax yar umbaan kor ka marinayaa waa ujeediin lagama badinaayo halkaana waxaa diyaar noogu ah olive oil extra virgin olive oil iyo basbaaska aadka u kulul oo jarjaran asna wax yar umbaan taste umbaan kaga rabaa that's it khiyaarta waa kanaa markaan dubay sidaan ayuu ku soo baxay hadda waxaan korka ka saarayaa waxyaabihii aan ku qasay kadibna foornada waa kor iyo hoos 200 garaadana way ii tahay foornadaan sii gelinayaa haddana si uu si fiican ugu sii bislaado inta ka dhiman sidaas ayuu ku soo baxay haddana foornada ayaan gelinayaa si uu macaankii dhanaanka dhanba uu gudaha oga galo khiyaarta hadda waxaan dubanaynaa lombiga roolka ahaa gudihiisa waxaa ku jira waa chicken mice iyo farmaajo kheyr allah siiyo jasaakallah kheyr maan aqoon sida loo sameeyo amba loo duubo markii hore waxaa i bartay aqwaanteyda qaaliga igu ah aamina ciise thank you aqwaan qofka markaad wax kuu faa'iideeyo laguma jasaaro waa mahadsan tahay ayaa la dhahaa marka abaalkeeda waan kaaga hayaa saaxiib wax la shiilaayo dhan kan ayaan ka haysanaa afurka sababtoo ah shiilidda caafimaad ma ahan sida kanoo kale haddaa shiishiid oo bajiyo shiishiid oo wixii dhanba wax oolyo lagu sameynayo hadday noqdaan wax fiican maaha sidaan horeyna idinkugu soo wada diray doctor xafiis maa la dhahaa wuxuu inoo sheegay rabadaanka afurka amba hadda hadday rabadaan ahayn isnood good waxyaabaha oolyada badan lagu kariyey sababtoo ah waa runtiisa waan ku raacsanahay caloosheenna maantoo idil ayay baahneed markaan wax saliid ka buuxda aan ku darno wax fiican ma ahan wax la shiilaayo dhan aniga kan ayaan ka qabaa hadda kadibna waa go-aan aan gaaray afur kasta ilaah hadduu raalli ka noqdo hal shay le shiiladayda hal shay inay noqoto inta kale green inaan ku samaysto si caafimaad leh inaan u samaysto weli waan sii gaduudinayaa kusoo dhawaada qaraabo iyo axsaabba kawaawa food channel afurka waxa waan idiin sheegay cunto caafimaad leh in lagu afuro adoon jikana isku dilin hadda waa kaasaday baaquligaas shurbada haddaa cabtid timirtaada iyo luumbigaaga iyo xabadaas aad cuntid biyahaaga aad ku cuntid markaad maqribkaaga dukatid cabaar nasatidna intaan haddaad casho ahaan u cuntid dufan badan ma laha habkaan u kariyeyna waad la socoteen hadhow camal cawadana aad baaquligaas furudkaa cuntid daadiseed intaas ka badan ba ma u baahnid adoonba jiko isku dilin qaraabo iyo axsaab afur wanaagsan adduunka meel kastoo aad ka kala joogtaan rabadaan kariim layga subscribe-ka sheerka gambaleelkana waa xaggiina bye